يعني qaraxii jugtii oo markay dhaceen anoo wax yar tilaawooyin yar ah hore u qaaday hadane xabadii waxa waaye isla markii wax niideeda ku jirta saxaabtii iyo wiilkii yar oo ila dhashay niideeda ku taagna waa soo laabtay Allah raxmad qofka ugu hor arkay meedkiisa ajeeg garay walaalkii ila dhashay waxa cad meel Allah raxmado dhammaan dadka weerarkan ku dhintay waxa ay ahaayeen dhalinyaro shacab oo aan waxba galabsan badi ka mid ah dhalinta geeriyootay markaas ayay si jameeca ahaan u soo wada tukadeen salaadii maqrib qof isa soo miidaamiyey ayaa soo dhex fadhiistay kaasoo aysan garan karin inuu ahaa cadowgii nafta dhaafinayay waxayse ka war heleen jugta qaraxa iyo uuro cirka isqabsatay iyagoo intaasi kadibna is arki waayey maadaama ay noqdeen kuwa dhintay kuwa dhaawac ah iyo in yaroo badbaada dadka weerarka ku geeriyooday oo 10 gaaraya 7 ka mid ah waxa ay ahaayeen saaxiibo gaar ah oo kubadda wada ciyaarayay wax wada bartay qaarkoodna ay wada shaqeynba ka dhaxaysay daawadayaal masaajidkan iga dambeeya waa masaajidka Sheekh Cabdi ee ku yaala xaafadda Alkamin waa goobta lagu tukaday 5 ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliyeed ee lagu laayay weerarkii xalay ka dhacay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir 5 dhalinyarada ay halkan lagu aasay waxa lagu xushay inay ahaayeen isku team sidoo kale wararka waxay sheegayaan in ay ahaayeen dhalinyaro hal jaamacad wax iskala baranaysay 5 dhalinyarada ah waxa ay ka soo baxeen masaajid ku yaala meel aan ka fogeyn halka qarax uu ka dhacay halkaas oo ay salaadii maqrib ku soo tukadeen waxa ay sugayeen qaar ka mid ah dhalinyaradii la socotay oo iyagana xilligaas salaada ku jirtay waxaana ay ku sugayeen meel sheex lagu cabo oo maqaaxi wadada ku taalo Saadaq Maxamuud walaalkiis ka yaraa ayaa weerarkan uga geeriyooday isagu waa dhaawac waxa aan ugu tagnay sariirta uu ka jiifo cisbitaalka lagu dabiibayo isaga oo fiiro badan jirkiisa ay ku jiraan shalay meesha naga gashay markii aan ka soo dhamaanno waa badneen waxaas dhahna bal intii maaragtay intaada kala tagin wax yar shaaha caba waan iska qadar ilaahay ahayd shaaha cabitaankiisa intana loo keenay anaka u fadhinay wax saan u dhaceen marka alxamdulillah waxa waaye wixii qadarnaa dhacay oo qof walba oo dareemi kara xanuunka ee leedahay dhalinyarada dadka saas ugu dhow inaa weesid inta wax la filan kara ma aha laakiin waa qaadanayna waa qadartii ilaahay wallahi waa badneen waxaas leeyahay meesha waxa ku fadhinay ilaa 12 qof haddayna ka badneen balse sida hadda igu maqaalka ah 6 qof waa dhinteen oo dadkeeni asxaabtii iyo walaalay dhashay ku jiro waa dhinteen halaa hadda aan markaas ogaayo ka dultaga qaarkood nimeedkooda arkayba markay wax dhacaan marka iyo alxamdulillah dhaawac fudud iyo yar kale asin dhaawaciisa aad u yar dareenya oo koom ku jira la sheegay dhalinyarada kale saaxiibada Ibrahim ku jira iyo Khalid Takaro ayaga dhaawacooda alxamdulillah ani ayaga Ilaahay noo yasir alxamdulillah marka iyo wixii kale oo dhinteen Allah u raxmado inta badan dhalinyarada meesha joogto waxaas leeyahay kala bar am ka badan way dhinteen ba alxamdulillah ani fireer yara igaaray oo mid doonta midna maxaa la sheegay abdominal calooshii dhankeeda ee gacanta wixii aad sheegto way u dambi wax ma aragtay markii wixii dhaca la fiiriyo wax aad u nugul oo saalinay gaar alxamdulillah waan nabad qabaa lugaheegaan ku socday alxamdulillah ilaa saddex xamal markaa xaqiiqsaday oo ku kalna u jeedo runtii waa dareemi kartaa wax laga sheekeyn kara maaha alxamdulillah wax adag ah soo marnay oo ilaa haddana aan ku jirno laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo diinteena insha Allah nocolinayso oo wax walba na farayso marka waa sabrayna insha Allah weeraradii u dambeeyay ee ka dhacay caasimadda sida kii Jalata Davino kii muqaayadda Lulyamani iyo midkii xalay ee Shangaani waxa lagu laayay dhalinyaro aan waxba galabsan mana jirto cid u damqata dhiigga dhalinta ee maalin kasta sida bilaashka loo daadinayo qaar ka mid ah dhalinyarada saaxiibada dhow ee ahaayeen marxuuminta xalay la laayay ayaa waxa aan kula kulannay masaajidka salaada janaasada lagu tukanayay marxuuminta waxaana ay ka sheekeynayaan aqoontii ay u lahaayeen saaxiibadood waxaan dhalinyaro wax baratay dalkooda joogo farxad ku wada maalin kasta iska warhayo maanta waxa disha gacan ka xaqdaran walaaleen shal naga wada dhintay dhamaantood waxa aan kuwa nugu weyn wax kale oo aan dhihi karo male maanta aan ahayn ilaahay dhamaantood waxa waa janno inuu ku rajeyno maan dhalinyaradii hal doorkii saaxiibadeena walaalaheena naga dhintay ilaahay u naxariisto marka hore ruuxantii waa geeri yani mutafajaca waaye aad ugu naxnay waliba markii walaalka ama waxa waaye qofka kugu dhawaamo uu ka dhinto xanuunkeeda aad u dareemaysaa saacado goor kugu dambeysay qadar maxaa ilaahay u naxariisto awha walaalkay uu ahay 5 sano wax soo barnaynay wixii dhacay yani masiibo ahayd hadii masiibo dhacdana quraanku wuxuu na farinaa yani ilaahay u laabano
إلهي بقى سبحانه وتعالى يا مروى الله ونينا وحيد عين مصيبة هذه إلهي سبحانه وتعالى صبر إيمان الله نقصيه. weerarkii xalay waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maanta uu galayo maalinkii labaad shirka madaxda dawladda iyo maamulada waxaana ajandaha miiska u saaran aan ugu jirin arrinta ammaanka oo ah baahida u weyn ee uu qabo qofka Soomaaliga ah ee dalka ku sugan halka taa beddelkeedna ay madaxdu wax weyn u arkaan ka hadalka xildhibaanada gobolka Gaza laga soo dooranayo cidda maamulaysa doorashada xildhibaanada